soo dhawaada akhyaarta qiimaha badan leh maanta waxaanu bilaabi doonaa course-keena malnutrition-ka waxaanu kaga hadli doonaa waa maxay malnutrition waxaanu sidoo kale kala hadli doonaa types of malnutrition-ka causes of malnutrition-ka iyo waxyaabaha keena course-kan waxaan diiradda ku saari doonaa acute malnutrition-ka waxaanu kaga hadli doonaa markaa types iyo classification-ka malnutrition-ku leeyahay waxaan kaga hadli doonaa marka inaynu ku keeno malnutrition managementgeeda iyo si loo diagnose gareeyo iyo criteria loo maro ayaan ku arki doonaa course-kan marka practical iyo theory labadaba uu yeelanayaa waa marka course aad u muhiim weeye adaan isweydiino marka waa maxay malnutrition horta kelmadda mal waa abnormal weeye waa in marka qofku normalkii ka tago laba mid uu marka noqonaya inuu noqdo undernutrition iyo inuu noqdo overnutrition marka ilmihii yaraa wuxuu noqonayaa undernutrition oo wuxuu noqonayaa ilmo marka undernutrition ama wuxuu noqonayaa overnutrition inuu buurnaado obesity noqdo oo wadamada imaka development waxay la tacaalayaan waa overnutrition way waa ilmihii buuranayo marka macaani wax develop gareynay laakiin course-keena waxaanu inta badan diiradda saari doonaa undernutrition-ka oo wadankeena iyo wadamada marka development country-ga ku badan waxa la dhahaa waa one of the leading cause kaasoo keena marka morbidity and mortality in children waxa ugu badan marka carruurta 5 sano ka yar saameeya ku keena marka morbidity and mortality gaba waxa weeyaan waa malnutrition-ka waliba severe malnutrition-ka waxa la yiraahdaa 60% boqolkiiba 60 carruurta 5 sano ka yar waxyaabaha u dhinta waa severe malnutrition way inaga wadankeena runtii aad iyo aad buu soo badanaya malnutrition-ku waliba carruurta 5 sano ka yar gaar ahaan carruurta waliba 2 sano ka sii yar aad iyo aad buu soo badanaya waxyaabaha loo sababeynay waxa kamid ah runtii dhaqaalaha bulshadeena oo hooseeya the poverty iyo food security iyo faqri badan oo runtii jira iyo primary health care-ka oo runtii aad aan u shaqeyn ama goobo ku haboon aan la helin runtii carruurta yar primary health care-ku runtii ma shaqeeyo waxa moodaa wadankeena inuu secondary ku tiirsan yahay oo marka aad u shaqeynin oo ilmihii yaraa marka hadduu xanuun infection iyo wax ku dhacaan inuuna helin goob caafimaad oo runtii ku haboon oo lagula tacaalo inuuna helin ayay noqon kartaa marka waxyaabaha keena undernutrition waxa kamid ah ilmihii yaraa oo aan helin cunto ku filan improper adequate food intake iyo marka ilmihii yaraa oo aan helin marka cunto ku filan iyo inuuna helin marka cunto ku haboonba iyo waxyaabaha marka inuuna marka absorption-kiiba ay wax ka qaldan yihiin sawirkan wuxuu noo muujinayaa runtii ilmo yaro undernutrition in this picture ilmaha yar waa undernutrition waxa gacanta kaga xidhan waxa la dhahaa muwaag waynu arki doonaa waliba casaankii uu maraya waa severe malnutrition way markaas loogu cabira iyo waxa weeyaan practicalkan ku arki doonaaba malnutrition-ka caadi ahaan laba baa loo qaybiyaa san hore idinku soo sheegayba waa overnutrition oo inuu qofka marka obesity ilmihii yaraa noqdo iyo marka undernutrition oo statin iyo marka ilmihii inuu noqdo underweight inuu noqdo ayaa kamida causes of malnutrition laba aynu qaybinaynaa waxyaaba primary causes iyo secondary causes marka primary causes waa waxyaaba asaasiga ugu badan ee wadankeena gaar ahaan ku keena malnutrition-ka way waxa kamida failure of lactation baa kamida ilmihii yaraayo naaskii laga daayo aad inoogu soo badanaya in waliba xilli hore hooyada ilmaha naaska ka dayso aad bay inoogu soo badanaysaa waliba dhibaatooyinka kale jira waxa kamida ilmihii yaraa hooyada naaska ka daysay caanahan la siiyo ee daasadaha oo runtii aan si ku haboona loo siinin oo amba asagoo dilation oo baraxa ay siinayaan runtii caanihii ilmihiina markaa u develop garayn kara malnutrition hooyooyinkii runtii sababo badan oo jiray marka ilmihii naaskii uga daaya ayaa kamida marka waxyaabaha kowka waxa kamida failure of lactation ilmihii xilli horeba naaskii laga daayo waxa kamida ignorance of women ababintii ilmaha runtii ay wax ka qaldan yihiin oo runtii hooyadii aqoonba u lahayn si ilmihii loo ababiyo waxa laga yaabaa cunto ku filan way haysaa laakiin sidii loo ababinayay cuntadii marka ilmaha yar ku wanaagsaneed haday tahay iron iyo calcium iyo protein ayaaba la siinayba waxa laga yaabaa in carbohydrate la siiyo marka waa waxyaaba ignorance iyo aqoon darro ka haysta xagga hooyada way waxa kamid ah poverty iyo faqri inaan loo helin runtii ilmihii wax la siiyo
ayaa iyadana kamida. waxaa kamida culture patterns, waxyaaba markaa dhaqanka la xidhiidha. dhaqanka la xidhiidha waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarba inayna waxyaaba dhaqanka la xidhiidha inaan la siinin. Soomaalidu dee cuntooyinka ay dhaqanka u leedahay oo carbohydrate u badan, hadday tahay bariis, laxoox, canjeero deegaanada qaar uga aqaanaane, inayna markaa iyadana ayna ahayn wax ilmihii ku haboon. marka waxyaaba cultures oo waxaa jira ilmaha ka hor istaagi karaba ina dadkeenu ayna siinin. waxaa kamid a lack of immunization, ilmihii oo markaa tallaal dhammaystiran aan la siinin. oo maxaa ka dhexeeya tallaalka iyo markaa malnutritionka? waxaa ka dhexeeya ilmihii haddaan la tallaalin waxa laga yaaba inuu xanuuno badan develop gareeyo. tusaale ahaan in measles ku dhacdo. measles waxay keentaa vitamin A deficiency ayay keeni kartaa. oo sidoo kale waxa laga yaaba inay severe pneumonia keento, ilmihii yaraa markaa uu asaguna malnutrition develop gareeyo. waxaa kamid a primary health care kasoo hadlaynay, runtii goobo caafimaad ku haboon ilmihii lagula tacaalo oo aan la helin ayaa iyadana qayb kamid a. waxyaabaha secondary-ga waxaa kamid a infectionada oo runtii keeni kara malnutrition. waxaa kamid a congenital disease-ka oo asaguna congenital disease-ka tusaale ahaan heart disease oo kale waxay nagu soo badanaya markaa carruurta yar wadnuhu isku daloolaan, oo iyadana markaa keeni karta malnutrition. waxaa keeni kara waxyaaba marka malabsorption inuu jiro ayaa keeni kara, oo ay keeni karaan marka cardiaciska amba gaadhilambiyada waxa loo aqaano markaa parasite ku dhaca small intestine-ka, kaasoo markaa keeni kara ilmihii yaraa markaa uu markaa absorptionka wax ka qaldamaado. waxaa kamid a waxaa kaloo jira lactose intolerance, waa enzyme markaa ku jira caanaha oo burburiye markaa sokorta caanaha ku jirta. taa marka qaarkood waxaa jira carruur uu ka maqan yahay, markaa carruurta ilmihii dhaariya badan iyo shuban badan buu yeelanaya. taasina waxay keenaysaa markaa inuu markaa ilmihii yaraa malnutrition develop garayo. waxaa kamid a celiac disease oo markaa qaarkood ay kamid tahay cuntooyinka qaare oo ilmuhu cuntooyinka tusaalaan baal kale ay qamadidu kamid tahay. waxaa jira maada glutamate la yidhaha ku jirta, taasina waxaa laga yaabaa in ilmihii yaraa absorptionkii dhaariya ay keento. waxaa kamid a timbida ku dhaca caloosha oo keeni karta. waxaa kamid a metabolic disease oo iyaguna ah markaa xanuunada markaa kamid tahay diabeticskuu kamid yahay, oo hadday carruurta ku dhacaan iyadana keeni karta. marka ayaa kamid a. waxaa kamid a waxyaaba risk factors of malnutrition, waxyaaba social factors aa jira. tusaalaan hooyadii oo xanuunsanaysa, amba hooyadii oo ka shaqo tagtaba imika nagu badan, amba hooyadii oo tamar darro oo aan u awoodeynba ayaa kamid a. waxaa kamid a aabihii oo xanuunsanaya amba aabihii oo shaqalaa. waynu ognahay marka aabayaasha Soomaaliyeed runtii inay yihiin sourceska waxa weeyaan familiyada runtii ay ku tiirsan yihiin. hadduu asaguna aabihii amba uu xanuunsado amba waxa weeyaan shaqo beelo, waxaa laga yaabaa ilmihii yaraa inuu markaa uu daryeel la-aan asaguna ay ku dhacdo. waalidkii oo markaa parent loss yimaado, dee waalidkoo yimaada amba ha dhinto amba ha kala tagaba, ayadana way dhici karta. amba disfort ha noqdo, ha isfuro, amba separation ha noqdo, waalidkii oo dee hadduu doono isqabo oo kala maqan baa jiri kara, ayadana waxyaaba saameyn labay ku noqon kartaa. hooyadii oo haysata more than 2 children under 5 years, hooyadii oo haysata markaa carruurta 2 carruur wax ka badan oo markaa 5 sano ka yar, oo ayadana markaa ina daryeel u kala hesho ay ku adkaato ayaa dhici karta. family size-ko markaa hadday carruur badani jirto markaa 5 sano ka yarna saameyn buu ku yeelanaya, markaa ayadana qayb bay ka tahay.